الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan kusoo gudbinaynaa saddex qodob barnaamijkeena caawa oo kala ah odayadii dhaqanka ee Hargeysa tagay Muuse Buuxi la kulmay oo hadlay maanta iyo waxa laga fili karo Cabdi Salaam Germany oo lagu soo dhaweeyay waxa weeye maxaa ku magaalada Laascaanood gudiyadeena iyo golaheena dhaqanka waxa weeye maxaa ku gudiga 330 iyo golaheena dhaqanka iyo meesha aynu taaganahay iyo waxa laga sugayo haddaan ku horeeyo waxa weeye golaha odayada dhaqanka ee Hargeysa tagay waxa weeye ay soo dedejisay hadalkii Garaad Jaamac Garaad Cali xafidahullah wax horta Soomaaliya waxa ay ka sugayaan oo ay reer SSC ay u keenayaan haba yaraatee ma jirto waayo Muuse waa Muuse Xasanna waa Xasan haddaan Ilaahay soo hadeyn oo Ilaahay aanu waxa weeye qalbiga Xasan Sheekh aanu bedelin waxa weeye oo aanu qof in damiir leh aanu noqon oo aanu is oran lagu ogaa tuuga marka loo qabto waxa weeye maxaa ku leedahay marbu yiraahdaa isgarab maartay oo yiraahdaa waraalaha la iga ahaado marka in uu sida uu garto marka uu fahmo in la ogaaday oo dhagartiisa la og yahay marka uu fahmo inuu isbedel waxuun uu ogolaado anigu ma sheegin laakiin Xasan Sheekh sida uu samaysan yahay horena looga sheegay Cali Khaliifna ka sheegay haddana aynu arkayno dad badan oo la kulmayna ay tabinayaan Xasan Sheekh wax laga sugayaa haba yaraatee ma jirto sida darteed waxa ay wax waliba ay ku xiran yihiin waxa aynu inagu qabsano gacanteena ayay ku jirtaa guushu inta marka waxaan qodobka dambe ayaan ku kabayaa insha Allah ee aan gudiga iyo golaha dhaqanka aan kula hadli doono waxaan qodobka kale aan u gudbayaa waxa weeye soo dhaweyntii maanta ee lagu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood Cabdi Salaam Germany wiilkii dhalinyarada ahaa ee activistaha ahaa waxaan leeyahay soo dhawow Cabdi Salaam waxaan rabaa inaan halka fariin aan uga diro gudigeena iyo golaheena dhaqankaba hadda waxa weeye mindida daabkeeda haya maxaa ku leedahay halganka SSC waxaan leeyahay Cabdi Salaam Germany waa tusaale wuxuu tusaale u yahay waxa weeye 100,000 oo dhalinyaro ah oo Hargeysa iyo Burco iyo maxaa ku leedahay Boorame iyo maxaa ku leedahay ku sugan oo dhamaantood doonaya mustaqbal wanaagsan doonaya oo fahmay waxa weeye maxaa ku leedahay beentii iyo maxaa ku leedahay riwaayadii 30 sano ay SNM ay u dhigaysay isla markaana doonaya dariiq ay uga baxaan dhalinyaradaas waxa weeye maxaa ku leedahay halganka SSC waxbay ku leeyihiin iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbal doonka ah iyo inta samaha jecel ee Soomaaliyeedba halgankan waxa weeye SSC waxbay ku leeyihiin wayna quudaraynayaan waxayna ku xiran tahay sida ay u qaabeeyaan golaheena dhaqanka iyo gudiga 330 waxaan rabaa marka inaan aragtidayda ku kabo farniina u diro golaheena dhaqanka iyo gudigeena 330 waxaan rabaa fariinta aan u diraya waxa weeye dhalinyaro yar oo aad iyo aad u dacyar oo sida Cabdi Salaam maxaa ku leedahay Germany oo kala ah oo mugdi uu ka galay mustaqbalkoodii oo la garanaysa gumaysi maxaa ku leedahay ku jiray muddo 15 sano ah ayaa ka gilgishay dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee SNM ay ka geysanaysay Laascaanood dhalinyaradaasi waxay fureen waxa weeye page cusub bay taariikhda reer SSC ay ku qoreen waxay soo xusuusiyeen oo ay mar kale soo cusboonaysiiyeen taariikhdii halgankii waxa weeye daraawiishta iyadoo ku beegan boqol guuradii maanta waxa weeye dhalinyaradii gacanta kuma hayaan halgankii laakiin waxa gacanta ku haya dad loo xulay oo gudiya iyo maxaa ku dhaca golaha dhaqanka waxaan leenahay kullukum raaci wa kullu mas'uul an raaciyati waxay ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysaa waxay waxa weeye maxaa ku dhaca ama gobolkay doonaan ama Muqdisho ha joogeen ama waxa weeye maxaa ku dhaca gobolada dhexe ha joogeen ama waxa weeye maxaa ku dhaca kuwa waqooyi ha joogeen
waxa ay dhallinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo maatada Soomaaliyeed ay idinka sugayaan oo ay maxaa ku aad iyo aad u qudaraynayaan waxa weeye iftiinka soo baxay ee dhallinyaradaasi ay shideen sida aad u gaarsiisaan waxa weeye gobollada iyo degmooyinka dalka sida aad ugu midhibada ugu aastaan oo aad magaranaysaa guusha u dhammaystirtaan waxa weeye guusha inaad dhammaystirtaan waxa weeye waa waxa ay doonayaan dadka Soomaaliyeed ee dulmanaa 30 sano ee samadoonka ah meel ay joogaanba gudaha iyo dibadda waxa la rabaa markaa gudiyay iyo golaha dhaqankow golaha halgankan inaad ka dhigtaan halgan caalamiya halgan Soomaaliyeed halgan waxa weeye gobonnimo doon halgan difaaca midnimada ummadda Soomaaliyeed halgan gaadha taariikhda waxa weeye maxaa ku dhahdaa baal dahaba ka gala waxa weeye waxaana aad arrintaa kaga midho dhalin kartaan oo arrintaa aad ku magaranaysaa maxaa ku dhahdaa aad magaranaysaa runtii aad maarto aad dariiqa waxa weeye la wada doonayo ummadda ay doonayso aad ka magaranaysaa kaga guulgaari kartaan waa inaad soo celisaan kacdoonkii waa inaad shacabka Soomaaliyeed abaabushaan shacabka aad xukuntaan waa inaad abaabushaan si sharaf leh waa inaad u abaabushaan dareenkii dhallinyarada waa inaad dib u soo celisaan caalankii shanta gees lahaa waa in gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba laga qaadaa waa inay ku dhawaaqaan shacabku sida ay u doonayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed sida ay u diidan yihiin kala goynta ummadda Soomaaliyeed sida ay u doonayaan badbaadada ummadda Soomaaliyeed sida ay u doonayaan shacabka Soomaaliyeed inuu aayahooda ka tashado iyaguna ay xaq ugu leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan taa ayaa waxay keenaysaa dabayl caafimaad oo marta dhammaan ummadda Soomaaliyeed gobol kastana gaadha waxa weeye degmo kastana gaadha saamaysa caasimadda gasha madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed gasha Hargeysa waxa weeye guriga Hargeysa looga taliyo gasha meel walba taa ayaa keeni doonta laakiin waxaan leeyahay ma garanaysaan oo sidaa ma u aragtaan waxaan leeyahay guddiga Allah idin garaysiyo golayaha Allah idin garaysiyo guul dhammaystiran baa la idin dhibay guul dhammaystiran oo wax yar oo istabaraacin ay ka dhiman yihiin ayaa la idin dhibay gurmad kale oo fara badan waad hesheen shacabkiina waad haysataan sharafta badnaa dhalinyaradii sharafta badnaa waad haysataan gurmad kale oo hiil walaala oo meel walba ka yimi oo idin garab taagan oo gudo iyo dibadana waad haysataan waxaan leeyahay garan waayina ee halganka dhammaystira oo guushu way dhowdahaye guusha dhaliya oo geyiga Soomaaliyeed waxa weeye badbaadadiisii iyo dadka Soomaaliyeed waxa ay ku taamayeen 30 sano ee la soo dhowriyo 30 sano ee la soo dhaafay waxa weeye waa hami iyo himilo Soomaaliyeed oo aan kooxi lahayn marka Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu Ilaahay idin garansiiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh